nimanka argagixisada way bareen waxba yaa la qarin qof runtii sheegaan banaankaasi joogan dagaal bay diyaar u yihiin cidda dib u faaganaysa dib u degan waa harti been in la isku sheega ma gobolkan in la luguuyo ma harti waxaan leeyahay dagaalku haduu dhab yahay saacada laga bilaabo ilaa galabta ilaa 4 ka soo saac weyn dagaal loo diyaar garooba nimankii banaankaasi joogan waanu diyaar garoobanaa dagaal dhab ah inaan la galno maanta waxaan shirkiga jaraa'id aan ku qabanaya magaalada Laascaanood jiid hore maanta xaaladdu waa kala degan tahay waxaan rabaa dhammaan inaan halkan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Sooliyo Sanaag iyo Cayn ama ummadda Khaatimo xaaladii ugu dambeeyay gobolka inta reer Khaatimo dal iyo dibadda waa la socday ama ummadda Soomaaliyeed halgan adag baa lagu jiray wuxuu soconayay muddo 4 bilood waxaan rabaa inaan xaaladda gobolku ku sugan yahay aan ka warrabo maanta xaaladda gobolku ku sugan yahay maanta waa deganaansho waxaan rabaa inaan baaq u diro cid walba oo gobolkan joogta oo hartiya in xaaladda gobolka Sool waxa yaala way ogyihiin xaqiiqda taalana way ogyihiin dalkan waxa ku dhintay dad aad u tiro badan halboolayaal oo gobolka ah oo ahaa haday culimo tahay haday dhalinyaro tahay haday siyaasiyiin tahay haday waxgarad tahay waxayna u dhimanayeen midnimada Khaatimo nimanka argagixisada koob iyo 20 cisho dagaalka waxa la galay ciidamada jamaahiirta ee ACC dagaalkaas waxay ku hortaagnayeen afafka gobolka waxayna u bareereen in naftoodii u horaan waxaan ku weynay dhalinyaro badan oo maanta aqoon-yahana oo gobolka ku sugnaa oo maanta u dhintay midnimada Soomaaliyeed iyo in ay dhulkooda xoreystaan waxaan rabnay maantana waxaan maranaa bishii shanaad maanta soo galnaa 5 bilood oo kaamil dagaalku nagu socday waxaan aan islaha maanta saakada aan taaganahay koob iyo 20 cisho ee jamaahiirtu ay dagaalamaysay waxaan islahayn maalintii hartiinii soo gurmaday ay yimaadeen waxa tagaysaan Caynaba oo dhulka hore aan u lahayn bunni walba qaadanaya baan ku tala gashanayn maantana waxaad moodaa xabacsanaan iyo xaalad kale inaan ka dareemino annagu waxaan ku weyna dad tiro badan waxaan u dhimanaa dhulkayga waxa qura aan leenahay aan ka midaysanaahayna waa midnimada Khaatimo waxaan rabaa inaan harti maanta ugu baaqo dal iyo dibad meel kasta ay joogan waxaan rabnaa dagaalka si dhaba in loo galo oo la dagaalamo iyagiiba halkan waxay taagan yihiinba leeyahay marba buur bay ka soo dhacayaan iyadoo maanta ay harti ay taagan yihiin maalintii ay jamaahiirtu dagaalamaysay waxa lagu dagaalamayaa AK iyo qori wuxuu ahaa geeslaaba dagaalku haduu dhab yahay maalintaas ay argagixisadu ay soo gali lahayd Laascaanood waxaan ugu baaqayaa cid walba oo gobolka rajo kale in ay dagaal u diyaar garowdo oo habacsanaanta la soo gashay iyo xaaladda nagu gadaaman laga daayo dagaal loo diyaar garoobo nimanka argagixisada way bareen waxba yaa la qarin qof runtii sheegaan banaankaasi joogan dagaal bay diyaar u yihiin cidda dib u faaganaysa dib u degan waa harti been in la isku sheega ma gobolkan in la luguuyo ma harti waxaan leeyahay dagaalku haduu dhab yahay saacada laga bilaabo ilaa galabta ilaa 4 ka soo saac weyn dagaal loo diyaar garooba nimankii banaankaasi joogan waanu diyaar garoobanaa dagaal dhab ah inaan la galno wixii ka dambeeya ee bari iyo saadaba hadan dagaal lagu qaado nimankaas waxaan leeyahay harti ciidamada jamaahiirta dagaalamaysay noo baneeyo hubka iyo ciidanka nooga taga taas waxa weeye canaan iyo mid tulnima meeshan waxa ku degaan meeshan xaalad adag ba ka jirta hadii gobolka aad ka dhaqaaqdid maatadii iyo carruurtii waxay habqan ku yihiin agaarka Laascaanood waxayna ka rajo sugayaan ciidamada harti ee magaalada ku weegaaran in dadkii maatada qaxay gobolkooda lagu soo cooleysigo si nabada bay rajeynayeen laakiin ma aysan filayn in maanta anaga marba weerar lagu soo qaado la dhaho xaalad military ba jiro xaalad BLMB ba lama ciyaarayo nimanka banaankaas jooga dagaal bayna u diyaar garoobeen dagaalku haduu dhab yahay aan golo nimanka banaankaas jooga waynu soo aragnaa war dagaalka loo diyaar garoobo ismadana waxaan leeyahay ciidamada fasaxa oo sii daaya gudidana waxaan leeyahay
وبريان habacsanaan baa jirta sidii hore ma tiidin guriga ay siyaad gasheen anigu waan yaabanahay xaaladda gobolka ku jirta wad ogtahay waxaan nin walba harti aan ugu baaqaya in maanta nin harti oo dameerle oo gobolka rajo kale siyaasad kama hadli karo mid Soomaaliyeed kama hadli karo mid Puntland hadalkeed badaa waxaan taa u leeyahay xaaladda gobolka ku jirta ninka naga damqanaya maanta ee colkuna dhex fadhiya olole iyo siyaasad iyo mid kale kuma dul wada karo war waxaan leeyahay hartiyo hal la diyaar garoobo dagaalkana hal la galo inta aan xoraanayna ama Puntland waxa la khaatuma ahaatee dagaalka in loo diyaar garoobo hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa war xaalad adag baa gobolka ka jirta maatadii iyo caruurtii waxay ay tuman tahay banaanka in dagaal loo diyaar garoobo roobkii ku garaacayaan oo kanaacadi ku cunaysa iyaguna waxay naawilay gobolkooda si looga socoliyo waxaan leeyahay dhalinyaradii dagaalama jirtay war diyaar garooba dhalinyaradii waxa laga yaabaa inay dib isku dhigato leeyahay tolba inii soo gurmado harti baa inii iyo ciida tara badan baa inii saraakiisha waxaan kula dardaarmayaa war saxa gaar ahaan hadalkayga waxaan ku soo gabayaa beesha in ciidanka la saxo oo la diyaar garoobo oo diyaar loo diyaar garoobo wassalaamu calaykum.